Inta waxaan ku hayaa mid ka mid ah barnaamijyada sirdoonku ay adeegsadaan adigoo aan sirdoon ahayna aniga kuu suurtagelin doona inaad adeegsatid. Weli taleefankaaga intaa meel uga tagtay tusaale gurigaba ma jeclaysatay inuu kuu duubo waxa hareerihiisa ka dhacaya si maqal iyo muuqaalba ah. Kuna darso taleefankaas inuu wax duubayo iyo in kale ma jirto haba yaraatee cid ogaan karta. Si wax cajiiba maaha. Intaan muuqaalka u guda gelin ku xasuusiyo haddii aadan akoontiga follow ahayn soo follow garaysid 150 wax yar baa inoo ka dhiman. Sidoo kale copy link inoo taabo markay ugu yartahay 3 jeer. lafta muuqaalkuna waa iska waajib weeye. Waxaad tagaysaa Play Store-ka taleefankaaga waxaana la soo degaysaa abka magacaas kale XS Camera Record Privately. Haddaba aniga hadda ii degsan yahay aynu open niraahno. Application-kan waa application-ka ay sirdoonku isticmaalaan sida Fahad Yaasiin iyo Mahad Salaad anaa hubayna isticmaalaan iyo sirdoonka caalamkuba. Haddaba markii uu halkan ku keeno waxyaabaha halkan kaaga muuqda waxa weeye RAM-ka taleefankaaga inta hadda bannaan iyo si guud storage-ka taleefankaaga inta bannaan buu halka kala socodsiinaya. Haddaba setting-ka application-kan ma waxaan rabnaa inaan wax yar ka soo saxno ama aan wax yar idin ka soo tuso. Waxaad taabanaysaa halka calaamadda setting-ka kadibna waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay camera and video setting. halkaas sidaa ka aragtid waxaad dooranaysaa kamerada aragtid inay wax kuu duubto ma front mise back kamerada hore mise ta dambe. Aniga hadda ta dambe. Sidoo kale halka ay ku qoran tahay record audio waxa weeye inuu codka kuu duubo iyo inuusan codka kuu duubin adaa dooqule. Hadda aniga on buu yahay flash inuu ifiyo off bay iga tahay. Flash taasi waxa weeye waa iska dhiiqo weeye marka off ka dhigo halkaas. sidoo kale waxaad dooran kartaa quality-ga video-ga HD iyo FHD. marka FHD waa ugu fiican hadda FHD bay joogtaa. back haddii aan ka soo iraahdo sidoo kale halka notification ay ku qoran tahay baad tagaysaa in macnaha notification lagula socodsiiyo in muuqaal duubistan ay socoto iyadana off baa ka dhigaysaa waayo waxana waa sirdoon weeye mar rabtid in lagu ogaado in wax duubasid. back haddii aad ka soo tiraahid sidoo kale waxyaabaha aad ka cajiibka oo aan application-kan kula yaabay waxa kamid ah inaad samaysan kartid wax loo yaqaan schedule ama inaad ku programin kartid waqti hebel inuu recording-ka bilaabo. tusaale dad baa hadda la fadhida uma baahnid markaan recording bilaabo markii aan ka kaco 5 daqiiqo kadib inuu ii bilaabo recording. halka ay ku qoran tahay scheduler baa taabanaysaa then halka hoose oo plus-ka baa taabanaysaa. halka kore waxaad geysanaysaa date-ka aragtid inuu ku bilaabo duubitaanka tusaale 30 August 2022 time-ka halka geynaysaa macnaha time-ka u baahan tahay inuu bilaabo recording-ka. hadda aniga waxay tahay 4 galabnimo iyo 26 daqiiqo haddii aan u baahanahay inaan ka dhigto aan xoogaa kordhiyo kale hadda waa 4 galabnimo waqtigan aan ka dhigto iyo 30 daqiiqo then okay baan dhahayaa. halkaasaan waxaan dhahayaa marka add scheduler haddii aan halka add dhaho automatically iyo 30 daqiiqo marka la gaaro recording baa si automatically u bilaabanaya iyadoo taleefankayga uu loo ku jiro. waxaad tagaysaa haddaba meesha wax laga duuba xagee weeye waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay start record. wixii lagu duubayna halkaas ka yaasaa kore ay ku qoran tahay records. haddaba haddii aan taabto start recording haddii hawshu way socotaa warna kama hayno sida halka ka aragtaan calaamadda yarta waa muujinaysa in hawshu socoto oo halka hoose u taal. then lock baan taleefanka gelin lahaa laakiin de muuqaalku inuu jaro baan ka baqayaa oo screen recorder baan isticmaalayaa laakiin idinku waa tijaabin kartaa. waa taabanayaa haddaba stop aynu fiirino marka wixii uu duubay halkaas taabanaysaa then halkaasaan ka daaraya wixii uu duubay saala ka aragtaan halkaas casharkaas uu duubay. soo wax cajiiba maaha soo dhawaada.